بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأنا محمد حسين محمد أهنا أساسها يقدميها جوجا ندو أكاديمي سيدو كلا هذا نحن أهي ندو أن سكيورتي مانجر نوفا تكنولوجيز سيدو كلا أنا ماركتي قاب أطفال سرنا هنا ماركتي وأنكوش خيارنا عن ندو سكيورتي تولي هدو إلى هذا وحاليو سعزومين ماركتي عن كلمة إذا كيرا هذا تخصصك أما في اللي ندوكين iyo guud ahaan markii la isku soo inshorted oo networking and security network and security kala soo wado ardayda hadda bilaabayso markaan dhehna network maxaa waaye waxaan ka bilaabaynaa faa'iidadiisa ama wuxuu ugu doon yahay waxyaalaha kala takhasusyada kala la barto networking markaan ka hadlayno tusaale ahaan oo kale waxaa jira hardware jira technology marka la hadlayo waa hardware iyo software so marka hardware iyo software kii waxa loo baahan yahay waxa la connectivity so connectivity marka ka hadlayno markaas waa marka soo galay network marka waxa waaye waa isku xirkii hardware kii iyo software kii ama si kala loo dhigo systems kala duwan ama bangi ha ahaado ama shirkad kasta oo technology ha ahaato network marka waxa waa connectivity isku xiraya systems kala duwan ama in short hardware iyo software kii wixii isku xir lahaa waaye وانا ماركتي تخصص بلارون واي هذا تصالحان هدي aan sheegno networking maxaa tusaale u ah waa meesha ka soo bilowday internet ka maanta isticmaalayna maxaa waaye waa network weyn aan isticmaalno waaye so marka internetka waa shabakad taala adduunka meel walba oo maaragtay caalamka isku xira marka kaliya waxa waaye asayna background kala fiiriyo waa networking maanta markii la fiiriyo baahida networking suuqa maaragtay aad ay ugu jirtaa oo maaragtay waa shaqooyinka aadka loogu baahan yahay oo maaragtay maalmo walba la soo xayeysiiyo laga yaabaa marka networking kaliya in la soo xayeysiino oo dhaho network and security sababtoo ah ma garanayo meel looga hadlo network oo aan looga hadlin security maanta waxaa u malaysaa even jaamacadihii inay maaragtay garteen baahidaas oo markii hore computer science la wada baran jiray laakiin hadda jaamacadaha waxay bilaabeen inay sameeyaan departments gooni ah oo network iyo guud ahaan security loogu maaragtay takhasus gooni ka dhigeen oo madax banaan marka ayadana waa fursad wanaagsan maaragtay ardayga inuu xaggaas maaragtay xooga saaro kaliya networking ama security fields markii la baranayo qasab miyaa jaamacad in la dhigto way fiicanta academic ahaan laakiin xirfadahaas maaragtay si gooniin ardaygu isku bari kara oo waxaa jira certifications kala duwan oo ardayga diyaarin karo oo insha Allah taala maanta aan la sheegayn doono certifications kaas waxa mar walba ugu horeeyo kuwa basic iska jiro committee maaragtay network balance laho laakiin aan according to my experience ardayga meesha ugu horeeyo oo darajada network soo fuuli karo marka laga tago jaamacadaha waa inuu barto CCNA kadib oo maaragtay u gudbo CCNB so marka intaas kaliya enough ma waxaa jira shahaadooyin kale oo kabitaan ah tusaale ahaan oo kale ma jirto maanta haddii la bangi ala fura markii la maxaa kugu soo dhacaya waa inaad taqaanid bangigaas wixii ku wardiin lahayn oo inaad haysatid marka network waa infrastructure-kii ama maaragtay weygii wax la isku xiriir lahaa laakiin waxaa waajib ah qofku markuu dhahayo networking aan barnaa waxaa waajib ah sidoo kale inuu security wax ka yaqaano meesha waxa ka soo galaya tusaale ahaan firewall-kii iyo technology-kii kala duwan tusaale ahaan kale certifications kala diyaarin kara waxa kamid ah 14 oo kale oo meesha basic la qaato kale ay kamid tahay NEC4 ay bixiso shirkaddan Fortigate sidoo kale qofku inuu solutions wax ka yaqaan tusaale ahaan oo kale cloud maanta moogtahay bariga hore waxaan uga xifaalin jiray waxa liiga network fiila la wata laakiin hadda maanta waa laga gudbay maanta waxa soo baxay network virtual ah oo ugu horeeyay cloud-kii ama guud ahaan virtualization maanta infrastructure-kii maaragtay dhulka hawada iska tagay wax walba xagee yaalaan daruuraha ama cloud-ka marka ardayga baranaya ama maanta soo galaya xirfadda networking waa inaad ku tashatid inaad wax ka taqaanid waa mandatory cloud-iska inaad wax ka taqaanid tusaale kale platforms-ka cloud-ka ka duwan yihiin waxa ugu horeeya Azure-kii oo Microsoft ah Microsoft Azure waxa ku xiga AWS-kii ama Amazon oo maaragtay leh tusaale kale xaajad company kale oo Google asagoo leh Google Cloud sajira marka saddexdaas madaba waxay ku xiran tahay midka xoog saarid qasab ma saddexdooda inaad wada taqaanid laakiin waa sidii maaragtay waxbarashadu kale waa mid daa baratid yani mid kale already maaragtay waa iska taqaanaa sababtoo ah certifications ma ka shaqeynayo micnaheedu waxa waaye waa lacag midka ugu yar waa like $400 ama $400 ama $300 ka badan waa sometimes waxay gaaraan $100 marka arday walbo certifications kaas ama jaamacad soo qaado ka soo bax ama ka soo bixin waa maanta magaalada so marka hadii aan soo maaragtay qodobada nooga faafin hadii aan soo kabo certifications kala baahan yahay waa Cisco oo CCNA iyo CCNB waa inaad wax ka taqaanid server side-kii ama tusaale ahaan oo kale Linux
sidoo kale automation inaad wax fahansantahay maanta automation waxa waaye yani in looma baahno maanta qalab walba in adiga gacantaada ku fargelisid micnaheedu waxa waaye one time waxaan diyaarnay script so that means intaasoo maaragtay qalab hal mar wax ku samayn kartaa yani waaba taqaaniin soo maaha fikradahan oo dhaho AI ama artificial intelligence waxa waaye meel walba soo gashay maanta mudwaaqin bay soo gashay micnaheedu waxa waaye lagama baahna inaad wax walba si manual u qabatid يعني ونس أمارة كفرجليسد أما سكريبتس ديارسد أما software defined networks ديارسد so wax kasta maaragtay si automatic maaragtay u shaqeyn doonaan oo maaragtay laga baahan doono manual 10 xaba oo kaliya sameeyna laakiin hadii dhinaca kale loo fiiriyo artificial ama AI markii la dhahayo aad uma saameyn industry-gan networking security waxa laga yaabaa maanta multimedia iyo dhinaca software-ka in aad u saameysay oo laga yaabo systems diyaarsan adoo maaragtay basics waxba ka aqoonin inaad system diyaarsan iskaysto oo laga baahan inaad code badan taqaanid multimedia waxa laga yaabaa editing badan inuu maaragtay AI ku sameeyso laakiin markaan ka hadlayno dhinacan networking ama security yani aad saameyntaas uma yeelan oo mar walba maxaa baahida jiri doonto maxaa waaye baahida jiri doonto waa connectivity weligeed way jiri doontaa isku xir way jiri doonaa security-na waa loo baahnaan doonaa mar walba yani shaqooyinka marka la fiirinayo waxaa laga fiiriyaa shaqooyinka yani 10 sano 10 sano oo soo socdo ka baxaya suuq ma noqon doonaan oo AI sameyn doonto okay markaan soo kobno marka networking oo maanta maaragtay hadafkaygu yahay laakiin waxa uu fakarayaa dhinaca security-ga so networking marka baranaysid ku tasho inaad barato security waxaa jira laftigooda shahaadooyin badan oo diyaariyay sida CISP oo ah certified information system security professionals oo kale oo isku bahan markii la fiiriyo yani information system ay aad u balaaran laftigeeda ay ku saabsan tahay haddana again maaragtay waxa soo hosgalaya network security waa shahaado loo qaadan karo oo yani globally waa shahaado ugu maaragtay markii security laga hadlayo lagu aqoonsan badan yahay iyo midaan kale oo diyaarin kara waxa kamid ah CEH oo ah certified ethical hacking oo markaan ka hadlayna network-gan scanning in lagu sameeyo oo vulnerability-giisa iyo daciifkiisa account rashid ina fiirisid qaab meel soo jabsan karaa qaabka u difaacan lahayd waxaas oo dhan maaragtay ku baran so marka in short marka ugu horeyso horta waxa ka bilowdaa aad tahay arday hadda maanta cusub inaad jaamacadaada dhigatid again aad bilowdid inaad maaragtay season ay ka bilowdid number 2 aad wax ka fahantid maaragtay platformskan tusaalahaan oo kale Linux-ka Microsoft Surface-ka marka ayaan soo socotid dadana waxa ku dadaashaa inaad wax ka fahantid cloud-ka oo ah meesha loo socdo this is our destination waa cloud maanta meesha la wadaado waaye number 4 waa inaad wax ka taqaanid security iyo waxaan aad dhisatay qaabka ku ilaashan lahayd ugu dambeyn marka maxaa asaasi maanta hadaan go'aansatay tusaalahaan oo kale inaad barato field-ga networking and security maxaa lagaaga baahan yahay shardiga I think waxaan umaleynaa inay tahay waxa ugu horeeya lagaaga baahan yahay inaad haysatid laptop-kaaga inaad taqaanid basic computer that's it I don't think maaragtay inaad u baahan tahay waxyaalo kale ama aqoon kale gooniye that's why loo dhaho dadka shaqooyinka ugu fudud markii skills lagu tababarayo ama maaragtay maadaama laftiga aan leeyahay platform ama maaragtay academic lagu tababaro network security ardayda waxa ka fiirina kaliya inuu yaqaano computer basics yani computer isticmaali karo internet yaqaano dan laptop oo haysto the rest waxa waaye intaas qofka asaga uu bari karaa haduu training center tagana waa la bari karaa so maaragtay jaamacadii haduu joogana maaragtay baran karaa so wax badan oo maaragtay aqoon badan oo background IT ina leedahay uma baahna waxa laga yaabaa hadii aad baratid filiyada kale tusaalahaan oo kale software ka multimedia in maaragtay shirkado gooni ah sarka gareynaysid laakiin hadii maanta aad baratid networking iyo hadii aan ka reebin security aad baratid yani shirkad walba oo system ku shaqeysa ama technology ku shaqeysa kaliya ma ahan shirkadahan waaweyn oo 3 xaba ama 4 xaba oo ka shaqeeya telecommunication-ka markii bangiyada laga tago any company oo maaragtay magaalada Muqdisho ku yaala ama maaragtay isku oolin oo hadda waxyaalaha soo baxaa kamid freelance wadoo joogtid wadankaaga ama gurigaaga joogtaa ka shaqeyn kartaa yani haddii shirkadaas ay haysato computer iyo internet ee maaragtay u baahan tahay systems in ay ku shaqeyso baahida network ku jirta يعني واشقوين ترى بدون قصب معها شغلة إني ماركتي سوفتوير سيستم صار ترى معها إيفن هذه ماركتي واحد كست إيه هاي مدواك مهم يعني وبيزك إسك شقد والبا oo maaragtay maanta jirta way u baahan tahay qof nadwaag ka support gareeya ama nadwaag technician way u baahan tahay ilaa maaragtay ay ku xiran tahay so meel walba shirkad walba company walba oo yar ama haweenaado baahidaas way jirtaa shaqadan way furan tahay yani dhowr meel ayaa maaragtay lacag si fudud kaaga soo geli kartaa laakiin goormee waaye oo markaa isdhistid oo maaragtay certificationska aan kasoo sheekeynay oo nadwaagkii leh oo cloudkii leh oo security leh oo maaragtay income-kiisa waxa soo dhamka isku diyaarisid waxa waa mustaqbal fiican ay leedahay plus waxa laga fiiriyaa future-ka
future-ka maaragtay 10 sano ama 20 sano ama 30 sano daartid siyaartid bas dheh shaqooyinka tirtirmi doono oo maaragtay ina ogtiin ma shaqooyin badan waxa jiri doonto oo ka bixi doono suuqa oo saadad soo sheegnay AI tirtir doonto oo baahnaan doon yani inuu qof qabto laakiin mar walba maaragtay mustaqbalka dhow imid ka dheerba ma muuqato shaqooyin badan oo maaragtay nadwaakin iyo security ka bixi doono jiri doonaan laga yaabaa inay maaragtay dhinac naga saameyso laakiin still waa loo baahnaan doonaa qof engineer oo filligan maaragtay qaban doono yani shaqooyinka baaba ay maaragtay ku marna filligan thank you very much waxay diinayaan mustaqbal ifaaya oo qurux badan